بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله لما نرضي كلا دونا سوالف ستار أونلاين ترين حشرة إنجليش لانجويج أنا كنت تكتب language ay ka bartaan qof professional ah waxaan la soo xiriiri doonaa aragtana amba WhatsApp na waa u soo diri karnaa waana injineer maxamed axmed baray casharadiisa taxanaha English online ka faa'iideysa adigoo ka heli kara aragtana amba la soo xiriiri doonaa Gmail Yahoo iyo wali waxa u soo diri kartaa Hotmail casharada kala duwan halkaas aan kala sii socon doonaa maanta license 79 bugi practice and progress ah waxaan sii maraynaa license 79 iyadoo casharo kala duwan aan arki doono waa dhammaan ardayda Somali Star Online Training meel walba adduunka ka joogno ardayda waqooyiga America kuwa Canada jooga iyo kuwa daafaha Europe jooga kulligood waxay ku soo wada dhawaanayaan somalistar.online.blogspot.com iyadoo casharo kala duwan hore ayaan u soo aragnay halkaas YouTube ka ardayda jecel channelkeena halkaas ay soo gali doonaan ayuu ku soo qoray Maxamed Iglan Google-ka waxa ku soo qori doontaa Maxamed Iglan already home ku keenaya YouTube wixii casharo ku jira halkaas ka helaysaa iyadoo casharo kala duwan halkaas kala socon doontaan waana somalistar.online.blogspot.com casharo video fara badan ayaa idinku jira oo ka degsan kartaan sidaa darteed casharadeeni waxay sii marayaan license 79 iyadoo step by step casharada aan u qaadan doono waxaan soo gudgalayaa cashirkeena maanta markaa cashirkeena maanta wuxuu quseeyaa buyer horeyna waa u soo xayeysiiyay cashirkan license 79 somalistar@yahoo.com ardayda imtixaanada danaynay waxay la soo xiriiri doonaan imtixaanka inay iska qaadaan buugga practice and progress imtixaankiisa wuxuu ka koobnaan doonaa ilaa 7 waraaqadood ayaa loo soo diri doonaa emailkiisa lagu soo diri doonaa waana la soo sixi doonaa waana la soo celin doonaa wuxuuna ardaygaas toos ula soo xiriiri doonaa imtixaanka jecel somalistar@yahoo.com waa ardayda YouTube kaliya ka faa'iideystay ardayda kale oo direct toos u dhigatana casharada imtixaanadooda emailkooda ayaa lagu diri doonaa sidaa darteed cashirkeena maanta wuxuu sii marayaa license 79 buyer diyaarad baa lagu safrayaa buyer waa maxay diyaarad baa lagu safrayaa I use it waxa caadi ahayd to travel and ku safro by air diyaarad a great deal wax badan when I was a boy markaan wiilka yar ahaa my parents waalidiintay use it to live in South America waxay ku noolaayeen koonfurta America Brazil iyo Argentina oo kale aniyo I use it to fly there halka ayaan u socdaali jiray ama u duuli jiray from Europe anoo Europe ka imaanaya in the holidays saxyada an air hostess gabar kuwa diyaaradaha ka shaqeeya air hostess waa gabdhaha diyaaradaha ka shaqeeya will take charge of me ayaa mas'uuliga ahayd aniyo I never had an unpleasant experience wiligeyna waayo aragnimo qaraar lama kulmin ama dhib lama kulmin way unpleasant experience waayo aragnimo qaraar wiligey lama kulmin I am using waxaan isticmaali jiray to travel inaan ku safro by air diyaarad and only one occasion kaliya munaasabadaha have I never felt finite weligeyna ma aanan argagixin ama ma nixin after taking off we were flying low markaan ku duulanay jawi hoose after taking off markaan qaadanay weeye aan kor u duulnay we were flying waxaan ku duulanay low jawi hoose ama si hoos ayaan u duulaynay over the city magaalada dusheeda over the city waa maxay magaalada dusheeda ayaan si hoose jawi hoose kula soconay and slowly laakiin tartiib gaining waxaan kordhinaynay high jooga kor inaan usii kicino when the plane goortii diyaaradda suddenly si lama filaana turned round ay usoo kala wareegtay and flew back turned round dib ay usoo jilecsatay and flew back ay dib usoo noqotay to the airport madhaarkay ku soo noqotay ama airportka weel goortaas we were waiting to land waxaan sugaynay intaan ka caga dhiganayno ama intaan dhulka ka degayno an air hostess gabadhii kuwa diyaaradaha ka shaqeeya ah to laas ayaa noo sheegtay to keep calm inaan isdejino keep calm isdeji weeye macnaha ishaa lama aqrinayo calm leleleya keep calm isdejin weeye inaan isdejino aniyo to get off the plane quietly si xasiloon inaan u qaadanayno ama u degayno kale as soon markiiba as it had touched ay taabato down dhulka as soon markiiba it had touched down ay dhulka degtay everybody qof walba on board oo dusha saarnaa was worried waa u walwalayay and we were curious waxaanu aad u doonaynay to find inaan ogaano out waxa halkaa ka socda to find out inaan ogaano what had happened waxa dhacayo later waqti kadib we learned waan ogaanay that there was a person
a very important person halkaa waxaa ahaa shakhsiyad muhiima on board ayaa diyaaradda saarnaa shakhsi madaxa ama shakhsi muhiim oo caana ayaa diyaaradda saarnaa on board marka dusha diyaaradda way waxa saaran on board dusha dul saaran way diyaaradda dadka fuulaa laga wadaa the police had been told that taas waxay noo sheegeen ee bamba had been planted inay ku rakiban tahay planted beeridiina waa loo isticmaalaa planted waxaa loo isticmaalaa marka dhirta la beerayo planted marka planted lagu rakibay bay ugu jirtaa hadda on the plane diyaaradda lagu rakibay after we had landed kadib markii aan degnay the plane diyaaradii was charged waxaa loo baaray search bay ka timid charged wey waa pastgeedii sarjet waxaa loo baaray thoroughly baa loo aqrinayaa thoroughly gun iyo baar ayaa loo baaray fortunately nasiib wanaag nothing was found waxba lagama helin aniyo 5 hours later 5 saac kadib we were able waxaan ku guuleysanay to take off inaan ka duulno again mar labaad waan kusoo celinaya cashirkan idoo cashiro fara badan aan la socon doono waana somalistaronline.blogspot.com halkan waxaan kasoo degsan karnaa fiidiyoyada kala duwan idoo cashiro kala duwan hore aan usoo qaadanay cashirada ku jira youtube-ka ayaga waa gaar kuwaasi mar walba lama soo gelinayo cashirada youtube-ka lasoo gelinaya cashirada kale oo ka muhiimsan waxaa ka heli doontaan idinkoo lasoo xiriiri doona direct number whatsappna waa usoo diri kartaa ardayda youtube-ka jecelna cashirada ka faa'iideystaan halkaa kasii faa'iideysan doonaan ayagoo kanaalkeena kusoo qorayo maxamed england okay idoo cashiro fara badan hore aan usoo qaadanay cashirkeena maanta waa bayer diyaarad baan ku soclaaday waa bayer safarkii diyaaradda aan ku galoo kale wey macnaheeda okay bayer waa cashirkeena maanta lesson 79 iyadoo step by step loo baran doono somalistar@yahoo.com somalistaronline.blogspot.com direct number waa la soo wada xiriiri doonaa bayer cashirkii ahaa I used it to traveling bayer waxay caado i ahaan jirtay waa laga soo gudba laakiin used waxay caado i ahaan jirtay to traveling inaan ku safro bayer diyaarad a great deal wax fara badan when I was a boy markaan wiilka yar ahaa a great deal marar fara badan when I was a boy markii aan wiilka yar ahaa my parents waalidiintay used to live in South America waxay ku noolaayeen inta badan koonfurta Mareykanka waa Brazil iyo Argentine aniyo I used to fly there halka ayaan u duuli jiray from Europe anoo Europe ka imaanayo in the holidays fasaxyada an air hostess gabar diyaaradaha kuwa ka shaqeeya ah will take charge of me ayaa mas'uuliyad iga ahayd macnaha responsible with me ayay la mid tahay she responsible with me ayay la macno tahay marka will take charge of me ayay mas-uuliga ahayd aniyo I never had unpleasant experience weligeyna lama kulmin waayo aragnimo qaraar I am using waxaa caado ahaan jirtay traveling inaan ku safro bayer diyaarad and only one occasion keliya hal munaasabadaha gaarka ah have I felt fine weligeyna ma aanan mushkilad dareemin ama weligeyna ma aanan nixin after taking off kadib markii aan kor u kacnay we were flying waxaan ku duulaynay low jawi hoose over the city magaalada dusheeda and slowly gain it high joogana tartiib ayaan ku kordhinaynay and slowly gain it high and slowly si tartiiba gain it high jooga kor ayaan u qaadaynay when the plane goortii diyaaradda sadali si lama filaana turned around and flew back dib aan ugu soo kala wareegnay turned ay u jilacsantay round gadaal and flew back dibna ay usoo kala wareegtay to the airport markii aan kasoo kacnay ugu soo laabatay weel goortaas we were waiting to land waxaan sugaynay intaan ka caga dhiganayno an air host gabadha diyaaradaha kuwa ka shaqeeya tolaas ayaa noo sheegtay to keep calm in istajino and to get off the plane quiet si xasiloon inaan ku degi doono as soon markiiba as I had touched ay taabatay ama ay caga dhigatay way touched down ay caga dhigatay everybody qof walba on board oo dusha saarnaa diyaaradda saarnaa was worried waa walwalayay and we were curious waxaan aad u raadinaynay to find inaan ogaano out that taasi had happened inay ku dhici doonto waxaa dhici doona later kadib we learned waxaan ogaanay that there was
where was a very important person shakhsiyad aad muhiim u ah shakhsi aad muhiim u ah on board inuu dusha saarnaa the booliiska had been told that waxay noo sheegeen in bamba had been planted inay ku rakiban tahay on the plane diyaaradda after kadib we had landed markaan caga dhiganay the plane diyaaraddii was searched thoroughly waxaa loo baaray gun iyo baar baa loo baaray nothing was found waxba lagama helin and 5 hours later 5 saac kadib we were able waxaan ku guulaysanay to take off charge inaan dib u kacno we were able waxaan ku guulaysanay oo kaantii la macno tahay we were able waxaan ku guulaysanay ama karnay oo kale to take inaan qaadano off aan duulno way again mar labaad sidaa darteed casharada imtixaanaha inta ay noo joogaan iyadoo ardayda kala duwan Somali Star online training casharada kala duwan direct number aan la soo xiriiri doona haddii aan u baahano wixii macluumaad oo dheeri halkaas aad ka weydaarsan doonaa iyadoo aan soo gudageli doono blogspot-ka haddii aan u baahano casharo kala duwan ama haddii casharada ardayda YouTube-ka jecelka ay channel-keena Maxamed Iglan ku soo gali doonaan sidaa darteed fi amaan Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.